iyaga u taala haday dambabayaan ay iscaayaan ila caydu waa dambiye sibaaul muslim fusuq wa qitaalu kufr ama ay feers la dhacayaan iyo wax la mida waa ku dambabayaan taas oo almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wa yadihi buu rasuulku iyaga diintooda iyo islaamnimada ka go'an tahay in laga waaniyana way tahay laakiin waxa la yaab leh in bulshada looga dhigo waxa noocaasi inuu yahay wax caadi ah oo la yiraahdo waa dhaqanka baarlamaanaadka lagu yaqaan oo mabda'an dimuqraadiyadda aynu qaadanay dadka aynu ka soo qaadano sida Mareykanka iyo basaasay sameeyaan way isfeerfeeraan waa xaraaradda siyaasadda keenaysa oo dhaqanka noocaas ee diinteenu sida aad maqasheen aad garanaysaan ay uga digtay dhalinyarteen iyo da'yarteenna wax caadi ah looga dhigo oo iyaguna taasi ay ku tarbiyadoobaan oo hadhow toole iskuulka ay dhiganayaan intay safay noqdaan oo feer iyo dhagax iskala daalaan ay yiraahdaan wax dhiba ma laha waa dabeecadda ciyaal iskuulka hadhow toolana xaafad ay isu dilaan oo cayuun ay wixii loo oran jiray ay sameeyaan iyo isjiid iyo rabshado kadibna ay yiraahdaan waa dhalinyarta caadadeeda oo xaraaradda dhalinyaranimo iska wadata wax dhiba ma laha لا يجوز يا عباد الله ما بنانا إن دقن إسلام كوانو أقولين يدو وليبا للدليشنا يددك الليته إلهي الرسول كيسو أي نقول هذين هكود ضيانينا ولا يكوا صانو كود ضيانينا بالشدة إن لو قد يقو وحفي عنه ونكسنين وياهي مرة ما بنانا ما أنت بنتي دعايتي حنتي اسكو دركي إشاعاتك وران الله بين إلا فافيو بين عد oo la og yahay in bulshada lagu sii dhaxdaayo ayaa dadkeeni waxa laga dhaadhicinaya oo lagu sheegay inay tahay siyaasad iyo xeelad iyo arrin fiican inay tahay wax dhibaataan ku jirin wararka bulshada ku dhex faafa ee beenta ah ama warar aan la hubsan ama warar faafitaankoodu dadka diintooda ama adduunyadooda u fasaadinayo run iyo xaqiiqaba ha ahaadaane wararkaasi waxyeelaynaya dadka diintooda iyo ku xidhnaanta ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku xidhan yihiin ama waxyeelaynaya cirdigooda iyo sharaftooda iyo dhegtooda amaba se dadka kala geynaya oo tafaraaruq iyo ismaandhaaf dhex dhigaya oo dadkii isjeclaa kala dilaya ama sababba u noqon kara nabadgelyo darro dil iyo dagaal inuu dhaco wararka sabab u noqonaya dadka naftooda in la jaro xoolahooda in si xaq darraa lagu qaato cirdigooda iyo sharaftooda meel in lagaga dhaco islaamku wuxuu ka digay sidaynu in badan maqalay annamiima oo isku dirka dadka ورسولك عليه الصلاة والسلام وحول سا مسلم كوريا صحيح لا يدخل الجنة قتات أي نمام مدر الدرالاء وكل الدلاء جنة قلي مايو هدانو جنة قلينا هلك وقليا والنار رسولك مركو صومري لبا قبري وحولي إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس لبدا قبري ددك كجرا ولا عذابيه وحوين ما هو حلو عذابيه ويجا لوينا اما كتغستيسو ay adag tahay midkood najaasada oo kaadidu ay kamid tahay baan iska dhowr jirin ka labaadna diraala ayuu dadka la dhex qaadi jiray waynu ognahay shaacaadka waxa kamida iyo wararka faafa beenta si guud buu islaamku beenta uga digay si gaarana wuxuu uga digay al-kadhib alladhi yablughu al-afaq beenta mashriq iyo maghrib ka dhacday dadka aad ugu dhex faafta oo dhibkeeda iyo raadkeedu waa ka wayahay beenta tiro kooban iyo masaafo iyo masaaxo badul oo kooban gaadha وبخاري وكوري صحيح في كتاب تعبير الرؤيا من حديث سمرة رضي الله عنه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه
in rasuulka calayhi salaatu wasalaam habeen laba malag ay kaxeeyeen wixii la tusay ay ka mid ahayd qof fadhiya oo mid kalena uu la dul taagan yahay maqas oo qowlalka uu ku jeexayo ilaa qadaadka, isha ilaa qadaadka, sanka dulkiisa ilaa qadaadka, dhinaca kale markuu wareego dhinacii horaa bogsanaya, haddana sidii uu ugu celinaya. camaliyadaasi waxay soconaysaa ilaa qiyaami saaca, ilaa qiyaam u dhacayo. markuu rasuulku malaa'igtii weydiiyey, waxay u sheegeen inuu ahaa qof sheega been mashriq iyo maqrib ka dhacda oo dad fara badan gaadha. islaamku wuxuu ka digay kiibada iyo xanta. islaamku wuxuu ka digay qofku war aanu hubsan inuu tabiyo dadka uu ku dhex faafiyo. yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayinuu. waayo fasaadkiiyo dhibaatadii aynu sheegnay ayaa ka dhalanaysa wararka aan loo hubsanahayn in bulshada lagu dhex faafinayo. marka warkaa dadku ay isu dhiibdhiibaana midba mid uu dhiibo ayaa dhibaatooyinka aynu sheegnayo kuwo lamidi ay ka dhalanayaan. maxaad u malaynaysaa marka loo helo warbaahin ilbiriqsiyo caalamka oo dhan warkii iyo hadalkii ku gaadhsiinaysa? nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu si gaara uga digay waxay wararka dadka laga faafiyo ee sharaftooda iyo dhegtooda iyo sumcaddooda iyo qiimahooda waxyeelaya. waman qaala fii mu'minin maa laysa fiih askanahu llahu radqat alkhabaal. qof muumina qofka ka yidhaahdo oo ka sheega oo ka faafiya waxaanu ku sugnayn oo aanu ku jirin, ilaahay subxaana watacaala naartuu geliyaa. horta naarta weliba wuxuu ka dejiyaa halka dheecaanka ahlu naarka uu ku dhaco. dheecaankii ahlu naarka ayuu dhex dabaalanayaa, naartiina waa ku jiraa. waa arrin aada iyo aada looga argagaxo oo aada u faalxun. ilaahay baynu naar ka magan gelinaa. dadka ugu daran ee maanta sameeya ishaacaadka, warar aan jirin faafiya, waxaa la odhan karaa waa siyaasiyiinta. bal waxaabay u arkaan arrintaasi inay tahay min asiyaasa. nacam inahu min asiyaasa, walakinahu min asiyaasati ashayطaaniya. siyaasa sharciya ka mid maaha arrintaas. siyaasadda ay shareecadu ogoshahay. siyaasadda ay shareecadu ogoshahay waa dadka in lagu maamulo oo lagu hogaamiyo oo lagu ilaaliyo danahooda adduunyo kuwooda diineed. wixii ilaahay subxaana watacaala uu soo dejiyey caalamkan in lagu xukumo lagu maamulo. waan ixkum baynahum bima anzala allah. siyaasad kasta oo taa khilaafsan waa siyaasatun shayطaaniyatun laa sharciya. waxaa la yaab le dadku iyagoo muslimiina in qof been laga sheego, in la dacaayadeeyo, in ceebihiisa u qarsoon banaanka lasoo dhigo, in la sameeyo warar aan jirin oo bulshada lagu dhex faafiyo, in la isdacaayadeeyo, inay u arkaan hadda iyagoo muslimiina oo diintooda ay xaaraantimeynayso, inay u arkaan inay tahay arrin caadi ah oo wax dhibaataya haba yaraatay aanay ku jirin. bal qofka arrimahaasi ka hadlo waxaa loo arkayaa qof jaahila oo dhoohan oo mutakhallif ah oo siyaasadda iyo arrimaheeda aan waxba ka fahamsanayn. isagaaba lala yaabayaaba. qofka dhawr waxaasi wax bannaan ma aha. hada laa yajuusu sharcan. waxaasi sharci ahaan uma banaana. walaa yajuusu laka ataxaakumu ilaa gayri sharci illah. ilaahay sharcigiisa waxaan ahayn in loo xukum doontaana ma banaana. waad arkayseen rag waaweyn oo isfeedhfeedhaya, waad moodda inay ku jiraan fii xalabati musaaraca.